بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو وعنا wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka xulka siyaasadda ee janalka warcadda media barnaamijka maalin walba ayaad nooga barateen inaan idiin soo gudbino barnaamijyo xiiso badan oo ka hadlaya dhacdooyinka caalamka iyo kuwa Soomaaliya iyo kuwa Soomaalida saameynta ku leh barnaamijka intaanu gudagelin dhegeystayaal waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe noo saartaan like iyo share aan noogu dhuftaan si muuqaalka meel dheer uu sii gaaro dhegeystayaal barnaamijka aynu gudagalno waxaynu maanta barnaamijkeena kaga hadli doonaa xaaladii ugu dambeysay ee bariga dhexe 25 diyaaradood kuwa dagaalka ah ayaa la sheegay inay hadda ka gudbeen Yurub kuna wajahan dusha maraakiibta ee ku dhow dalkaasi Iran haddaba maxay tahay diyaaradahaasi madaxweyne Trump ayaa la sheegay in uu markaasi ku dhow yahay inuu amar ama go'aankii ugu dambeeyay qaato oo ku aadan duulaan ka dhan ah Iran wararkaas ayaa saaka warbaahinta ay tahay waxyaabaha ugu weyn oo isha lagu hayo saacadaha daqiiqadaha maalmaha waxaa la filan karaa in dagaal xoog leh uu dhexmaro Mareykanka oo garab siinaya Israa'iil iyo sidoo kale dowladda Iran haddaba Iran ma heli doontaa taageero ballaaran oo dhanka militariga oo ay dalalka xulafada yihiin sida Shiinaha iyo Ruushka haddaba barnaamijka ayaanu faaqidaad kooban ku sameyn doonaa annagoo soo koobayna wararkii ugu dambeeyay waqtigan iyo sida ay xaaladdu tahay ayaynu warbixin kooban kaga warami doonaa xiisada bariga dhexe ayaa markaa hadda waxaa la sheegayaa in uu gobolka ku riixayso qarka dagaal weyn oo markaasi in uu ka qarxo sida ay tabinayaan warbaahinta caalamka isla markaana laga soo xiganayo saraakiil dhinacyo kala duwan ah oo dalalka Israa'iil Mareykanka iyo Iran madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la sheegay in uu ku dhow yahay in uu amro dagaal weyn oo ka dhan ah Iran la taliyaashiisa madaxweynaha Trump ayaa kula talinaya in ay markaasi dagaal weyn ku qaado Iran si loo burburiyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa isna dhankiisa Trump ku qanciyay in Iran la weeraro isla markaana la burburiyo Iran ayaa markaasi dhankeeda ku jirta diyaar garowgii ugu dambeeyay iyadoona sheegtay wakiil u hadlay Iran in ay diyaar u tahay wada hadal iyo isdifaac labaduba ilo xogaal ayaa sheegay in dagaalku uu bilaaban karo si dhaqso ah badan isla markaana uu ka ballaaran karo intii la filayay sababtoo Iran ayaa la sheegay in ay xulafadeedii ku wargelisay isla markaana ay u diyaarisay hub kala duwan si ay dagaalka meel kasta oo ay joogaan kaga qayb galaan haddii ay ahaan lahayd jabhadaha Iran taageerto ee ku sugan Suuriya Yemen Liibiya iyo sidoo kale dalalka Iraq iyo Lubnaan Iran ayaa la sheegay in ay gantaaladeedii balastikada iyo hubkii ugu sareeyay oo ay soo saaratay in ay banaanka la timid iyadoo sheegtay in ay diyaar u tahay in ay isdifaacdo si ay markaasi u ilaashato madax banaanideeda howlgalkan la rabo in lagu qaado dowladda Iran ayaa la filayaa in uu noqdo mid ay si wadajir ah u fuliyaan Mareykanka iyo Israa'iil ayaa aad u daneynaysa in la burburiyo awoodda militari ee dalka Iran Mareykanka ayaa isna ku fikiraya in dagaalkani uu noqdo mid markaasi sii ballaarta isla markaana uu daneynayo in dagaalka la xakameeyo keliyana la burburiyo Iran waxaa suurtagal ah in uu weynaado ololihii duqeymaha markaasi Israa'iil 12 maalmood ee socday bishii Juun ee sanadkii hore la soo dhaafay kaasoo markaasi dhexmaray dalalka Iran iyo Israa'iil Iran ayaa markaasi gantaalo culus kaga jawaabtay duqeymo uga yimid dhanka iyo Israa'iil ayaa la sheegay in markii hore aysan filaynin in Iran duulaan ku soo qaadi karto ama ay iska difaaci karto gardaradii ay ku qaaday balse Iran ayaa markaasi kaga jawaabtay si markaa lama filaan ah iyadoona ay garaacday magaalooyinka ugu muhiimsan ee dhulka Israa'iil haysato Axios
Warbaahinta ayaa sheegtay in Trump uu ka niyad jabsan yahay la taliyayaal uga digaya dagaal lala galo dalka Iran. La taliyayaasha qaarkood ee Trump uu leeyahay ayaa uga digaya in Iran dagaal lala galo maadaama ay u sheegeen madaxweyne Trump in dagaalku uu ballaaran karo, khasaaraha uu geysanayna ay noqon karto mid saameyn togan ku yeesha dhaqaalaha, amniga iyo guud ahaanba askarta Mareykanka. La taliyayaasha ayaa sheegaya in Iran wax kasta oo khatar ah laga filan karo, isla markaana isku xirka Hormuzka ama badda Hormuzka oo ay Iran fadhiso jari karto, taasina ay gebi ahaanba meesha ka saarayso maraakiibta boqolkiiba 25 marta ee u gudubta Yurub iyo Ameerika in ay markaasi kala xirmaan. Taasina waxay keeni kartaa in dhaqaalaha adduunka oo dhan uu dhulka galo, isla markaana Mareykanka iyo dalalka xulafada la ah ay saameyn xooggan ku yeelan karto. Saraakiil Israa'iili ayaa sheegay in ay isu diyaarinayaan xaalad aad u daran maadaama ay sheegeen in Iran lagala kulmi karo dagaal, isla markaana hub culusna la soo bixi karta, taasoo garaaci karaan dhammaan magaalooyinka iyo deegaanada ay Israa'iil xoogga ku haysato. Waxa ay sheegayaan saraakiishani in markaasi Iran ay saameyn xun ku yeelan karto dagaalkeeda guud ahaanba Israa'iiliyiinta ku nool dhulka ay Israa'iil hadda xoogga ku haysato. Waxay sheegayaan in gantaalada Israa'iil uu soo gaarayo dhulkaasi, isla markaana ay adag tahay in Israa'iil gantaaladeeda wax difaaca ay si dhaqso ah uga jawaabaan, isla markaana ay qabtaan dhammaan gantaalada la soo gano. Waxaana ay sheegeen isla markaana tusaale u soo qaateen dagaalkii bishii Juun sanadkii hore ee dhexmaray dalalka Iran iyo Israa'iil. Qorshayaasha waxaa ku jira isbeddel nidaam iyo bartilmaameedyo ku wajahan nukliyeerka iyo gantaalada Iran, sida la qorsheeyay ama ay qorsheeyeen saraakiisha militari dalalka Mareykanka iyo Israa'iil in bartilmaameedka xoogga ugu badan la saaro 3 goobood oo kale ah: in la dilo ama la qaarijiyo ama la qabto hogaamiyaasha dalka Iran, iyo in la bartilmaameedsado xarumaha nukliyeerka ee Iran iyo xarumaha gantaalada oo ay markaasi Iran ku keensatay si awoodda militari ee dalkaasi loo wiiqo. Afhayeenka dowladda Iran oo isna u hadlay waxa uu sheegay ninka lagu magacaabo Fatemeh Mohaajeriin in markaasi Tehran wado wada hadal iyo diyaargarow difaac labadaba, isagoo warbaahinta ugu warramay in ay diyaar u yihiin in la wada hadlo, isla markaana la gaaro heshiis markaa lagu badbaadin karo mustaqbalka Bariga Dhexe, isagoo sidoo kalena sheegay in ay diyaar u yihiin in ay dagaal la galaan Mareykanka iyo Israa'iil si ay isu difaacaan una difaacaan dhulkooda, dadkooda iyo qarannimadooda. Waxaa afhayeenka uu sheegay isla markaana uga digay Mareykanka iyo Israa'iil in ay joojiyaan duulaanka ay rabaan in Iran ku soo qaadaan, iyagoo markaa u sheegay in dagaal uu ka qarxo Bariga Dhexe uusan kaliya saameyn ku yeelan doonin dalka Iran. Waxaana afhayeenka ama dowladda Iran horey dhowr jeer u sheegtay in dagaalka uu gaari doono meelo badan oo ka tirsan Bariga Dhexe, iyagoo sheegay in ay bartilmaameed u noqon doonaan dhammaan xarumaha militari ee dalka Iran ama dalka Mareykanka uu ku leeyahay Bariga Dhexe, sida Sacuudiga, Qatar, Imaaraadka Carabta, Lubnaan, Bahrain iyo kuwa kale, in ay bartilmaameed rasmi ah u noqon doonto haddii Mareykanka iyo Israa'iil ay duulaan ku qaadaan dalka Iran. Iran ayaa Khamiista maanta ah la sameyn doonta Ruushka dhoolatusyo ciidan oo wadajir ah badda Cumaan. Dhoolatusyadan ayaa muujinaya iskaashi sii kordhaya oo u dhexeeya labada dal ee Ruushka iyo Iran. Su'aalo badan ayaa dul hooganaya Mareykanka iyo Israa'iil markii ay duulaan ku qaadaan Iran. Dalalka Ruushka iyo Shiinaha ma difaaci doonaan madaxbannaanida dalkaasi Iran duulaanka ay ku soo qaadeen? Waa su'aalo weyn oo ay warbaahinta inta badan iska weydiinayso, isla markaana
ay weydiiyeen dowladda Iiraan madaxdoodii iyo madaxda Shiinaha iyo Ruushka, balse waxaa tusaale loo soo qaatay dalka Ukraine oo lahaa xulafadii ugu weynaa ee dunida sida reer galbeedka oo ugu horeeya Mareykanka, Israa'iil, Ingiriiska, Faransiiska, Jarmalka intuba ay indhaha ka daawanayeen keliya ay siinayeen taageero militari oo aan wax badan dagaalka ka tarin. Haddaba xaaladda Bariga Dhexe ayaa hadda ah mid Bariga Dhexe ah, isla markaana laga cabsi qabo in uu ka qarxo dagaal muddo dheer laga cabsi qabay in uu Bariga Dhexe u galo, taasoo saameyn ku yeelan karta guud ahaan dhaqaalaha adduunka, isla markaana dalka Iiraan uu wajahayo xaalad aad u adag maadaama dalalkan ay yihiin kuwo xoog badan isla markaana ay saameyn ku yeelan karto nolosha dadka reer Iiraan. Dhegeystayaal, intaynu barnaamijkan xiga dib u kulmi doono wixii warar ku soo kordha, waxaan kaga tegnaa sidaas nabadgelyo. Waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe noo saartaan channelkani, like iyo share noogu dhuftaan si muuqaalka meel dheer u sii gaaro.